xafiiska caafimaadka I think waxa jira xanuunkan shubanka oo aad moodid inuu xakameyntiisu aad u adag yahay uu sii ballaaranayo degmooyin kale oo cusub ku sii fidayo degmooyinka hadda eega raasay iyo meelaha cusub oo hadda eega dib uga dilaacay qabridahar buu ka jiraa qalaaf buu ka jiraa magaalada inay jirjibus ka jiraa erar buu ka jiraa marka degmooyinkaas xakameyn iyo qorshe noocee oo very urgent ah ayaa jira oo waxaa lagu xakameynayo xanuunkaas oo xal degdeg ah xafiiska caafimaadka sida ku cad siyaasadda caafimaadka dalka xarumaha adeeg bixintooda waxaa lagu qaybiyaa 3 darajo oo kala ah darajada koowaad labaad iyo saddexaad waxaana go'aamiyay dadka ku nool goobtaas sida daraadeed cusbitaalka fiiq oo adeeg siiya dadka ku nool degmooyinka gobolka Erar oo 8 degmo dhan xafiiska caafimaadku sidoo kalena cluster lead u ah 110 rugo iyo xarumo caafimaad wuxuu aqoonsan yahay xafiiska caafimaadku darajada saddexaad oo primary hospital taasoo loogu talagalay inay adeeg siiso 60 ilaa 100,000 oo qof marka xafiiska caafimaadku darajaduna marka la leeyahay iska magacaabidun ma aha infrastructure-ka iyo provision-ka ama manpower-ka u baahan tahay in halka laga helo weey tusaale haddii dhakhtar lagu qoray specialist meeshaas goobtii adeeg ku bixin lahaa uu baahan yahay marka xafiiska caafimaadku waxaan weydiin lahaa maxay uga dhigan tahay cusbitaalka fogaanta inta la eg jira iyo heer daboolka inta la eg adeega siin haya in uu primary hospital oo la mid ah district hospital uu ilaa maanta aqoonsay sidoo kale su'aasha labaad xafiiska caafimaadka sidaan la wada soconno xafiiska caafimaadku muddooyinkii dambe la dhacayay cudur dilaac ka qarxay magaalooyinka waaweyn badankood markaan soo xigano dalka intiisa kale waaxda xafiiskeena u ah public health emergency waa macad madax bannaan oo iskii u shaqeeya looguna talagalay inuu xanuunadan research ka sameeyo xakameyntoodana uu ku filaado marka maxaa ilaa hadda xafiiska caafimaadka uu hoos joogaa macadkan su'aalaha iyo tala bixin bay isugu jiraan waxaan soo jeedinaa insha Allah su'aalaha haddaan u horeeyo xafiiska caafimaadka mashaariicii u dambeeyay xariga laga jaray 15 14 ilaa hadda waxaa ku jira xarumo caafimaad iyo hospitaallo waxaa ka mid ah hospitaalka gobolka Naqab hospitaalkaasi meesha laga dhisay loo xushay meel aad muhiim ah oo baahi badan loo qabo u ahaa bulshada dhan ee gobolka Naqab ku nool halkaa hospitaal baa u adeega iyadoo la qabo xarumaha kale caafimaadka xafiiska caafimaadkana aanan leeyahay dadaalo badan oo manpower-kii machinery-ga waa u sameeyay haddana uma dhammaystira si uu adeegii si hufan ugu fuliyo waxaa ka dhiman qalab iyo manpower-ka wax badan baa ka dhiman deegaanka si guud ma gaarin light-ka 40 saac ahaa hospitaalkaasi ma laha light uu ku adeego ma laha xafiiska caafimaadka wuxuu ku tala bixiyay damo qalimadii kala dunaa iyo adeegii ay fulin lahaayeen manpower-kaas u fulin lahaa oo u baahan yahay light xafiiska caafimaadka waxaa jirta tala bixiyo ahayd in solar loo raadiyo dadaal badan oo ay sameeyeen bulshada isku tashi sameysay la kaashatay degmooyinka iyo gobolka way ka awood badnaatay inay awood u helaan solarka 20 milyan ka badan buu u baahday marka su'aasheedu waxay tahay maadaama lagu jiro bishii dar ee la diyaarin jiray miisaaniyadda budget setting 2017 xafiiska caafimaadka qorshe ahaan ma ugu jirtaa inay ugu daraan miisaaniyadda sanadka cusub
يعني isbitaalka weyn ee laga dhisay maamulka magaalada isbitaalkaasi aad buu weyn yahay runtii magaalada aad wax weyn ugu qabanaya marka daahitaan badan iyo jiitaan badan baa ka jirta bulshaduna waxay u qabtaa baahi weyn isbitaalka laftigiisa cid gacanta ku haysa in lala xisaabtamo oo la dedejiyo ayaan soo dhigaynaa dhinaca shuban biyoodka ama daacuunka xafiisku dadaal badan buu ku bixiyay guud ahaan wuxuu ka jiray 20 degmo ka jiray 17 degmo ayuu hadda ka jira waqtiga xaadirkan 4 degmo waa la xakameeyay si guudna 6 guddi baa ka shaqeysa shuban biyoodka 6daa guddi marka xafiisku 2 guddi kaliya bay mas'uuliyad buuxda u leeyihiin waxa kale waxa weeyaan bahwadaagtu inay kala shaqeeyaan marka tala ahaan waxaan u soo jeedin lahaa command postiga ama guddiga sare ee loogu talagalay shubanka shirka gale in la sii xoojiyo dhammaan degmooyinka iyo gobolladana xoogga ay saaraan shubanka sidii loo xakameyn lahaa xafiiskana lagu garab istaago hawsha bahwadaagta kale kala shaqeynaysana inay xoog saaraan tala ahaan baan u soo jeedin lahaa sektorka caafimaadka dhowr su'aalood baa la weydiiyay waan soo koobay maadaama waqtigu kooban yahay 5 daqiiqo inaan ku soo koobaan isku day su'aasha ugu horeysa xaaladda la xiriirta shubanka muddo kooban ayay deegaanka ku jirtay waana golaha xildhibaanadu waxa muhiim ah inay ogaadaan arrinkani arrin deegaanka kaliya ku kooban maaha waa arrin dalka oo dhan deegaan uusan ka jirin aysan jirin waliba deegaamada aan jaarka nahay ee xuduudda aan leenahay fara badan oo ku hayo degmooyinkii maamul magaalooyinka uu saameeyay marka badankooda la eegana waa degmooyinka badanka deegaamada xuduudda aan la leenahay jaarka la ah laakiin muddooyinka u dambeysay waxaa xoogga la saaray in isku dabaridka jawaab celinta nadaafadda iyo biyaha sahanka iyo bukaanada daaweyntooda xoog la saaro si jawaab celintaas meesha loo baahnaa u gaadho sidaas daraaddeed 22 degmo ee uu ka jiray 4 completely waxba kama jiro oo waa la control gareeyay 8 degmo oo ay ka mid yihiin daymeed shabeelley lagahidda gootaabiki abaaqur sagaag mustaxiil iyo lagahidda iyo mayimulqo bishii u dambeysay halkiisa kama jiro waa 0 case dhowr degmo oo sida degmooyinka qallaafo erar gursum maamulka magaalada Jigjiga iyo Togo Jaale bishii u dambeysay keesasku aad bay hoos u soo dhaceen waxa u dhaxeeyaan 0 ilaa 2 degmooyin hadda uu ku cusub yahay ayaa jira oo sida maamulka magaalada Qabridaha Raaso aw Barre iyo Dhuunyar jawaab celin fiican baa ka socotay kana tiimashii oo loo baahnaayo mal sectoral oo ka shaqeynayaan washki aad baa loo adkeeyay waxaan rajaynaynaa iyaguna wiigagan dhexdooda inay madartay hoos u soo dhacaan jawaab celintii la sameeyay waxaa xoogga la saaray in 6da tiir ee muhiimka u ah marka jawaab celinta shubanka laga jawaabayo degmo waliba maamul magaal kasta laga dhiso ayna shaqeeyaan habeen walina coordination meeting laga galo la qiimeeyo si jawaab celintaas meesha loo baahnaa u gaadho daawooyinka loo baahnaa khabiiradii loo baahnaa xirfadlayaashii dhakhaatiirtiina meelihii aynan hospitaaladu ku oolin waa laga caawiyay meelihii hospitaalada ay ku yeeleen hospitaaladii baa madartay iyagoo gacanta kula jiro jawaabta ka bixinay marka intaas aan ku dhaafi meel aysan dawo gaadhin waa la xakameyn lama odhan karo marka dhammaantood degmo iyo maamul magaalo aan dawo la gaarsiinin khabiirra aan la gaarsiinin wash sectorka aan laga caawinin oo deegaanka ka jirta ma jirto taa in saa loo qaataa muhiima isbitaalka fiiq oo dhowr meelood laga soo qaaday su'aashiisa hospitaal waliba marka la qiimeynayo darajada uu taagan yahay in la ogaadana la rabo 4 qaacido muhiim oo la maraa jirta infrastructure uu leeyahay ama dhismaha hospitaalkaasi uu leeyahay xirfadlayaasha caafimaadka ee jooga qalabka uu haysto iyo adeeg bixinta ka socota 4 premises baa la isku dhaha 4ta marka la qiimeeyo kadib iyo darajo la siin karo hospitaalka primary hospital ba secondary hospital ma tertiary hospital waliba darajada uu taagan yahay inaan kor looga qaado baahida haysa maxay tahay baa muhiim annagoo ka duulayna baahida ka jirta hospitaalka fiiqeed inuu ballaaran u baahan yahay laakiin miisaaniyadii deegaanka ka jirtay aynan ku fillayn in hal aagaa la geliyo proposal baan qornay wasaaradda caafimaadka ee federaalka ayaan la wadaagnay way aqbaleen in expansion loo sameeyo hadda bid processkii baa socda marka taas dhankii expansionka ahaa in jawaabtiisi laga jawaabay oo intii la karayo sanadkan lagu daray in saa loo ogaado dhanka qalabka oo hospitaalku madartay ay xoogaa iyaduna madartay baahi ay ka jirtay hay'adda UNFB baan ku xidhnay qalabkii loo baahnaa ballaarinta qaybta qalliinka iyo dhalmada in badan baa la gaarsiiyay sanadkan waxaa lagu soo kordhiyey adeega lafaha adeega ilkaha iyo adeega indhaha oo gabagaba maray oo isla hal hospitaalka fiiqeeduna wixii kale madartay sectorku markuu miisaaniyada inta ka ballaaran inay baahidaas laga jawaabin diyaar baan u nahay waqti kastaba arrinka la xiriira public health emergency-gu agaasin inta laga saaro ma institute laga dhigo deegaanku ku kala duwan yahay
deegaanka haddii deegaamada kale xitaa jaarkana la eego deegaanka oromada deegaanka maaragtay benishangul hararida maamulka magaalada dirdhabe agaasin level buu taagan yahay deegaamo uu institute yahana way jirtaa laakiin hadda daraasaad yaan wadnaa public health association ugu horreeyay waa la sameeyey laakiin waxaa muhiim ah meeshii loo baahanaa marka macadkan la dhisayay ee regional laboratory ku shaqeynay inuu dhammaado regional laboratory maamulka magaalada Jigjiga ku yaala 90% buu hadda socdaa gabagab uu maraya marka daraasaadkaas iyo regional laboratory markuu u dhamaado inta la isku sargooyo aan xafiiska maaragtay cadaalad iyo bayaan laga sameeyay in la yeegleeyo macadkaasna xafiiska xuduudaha daraasad baa jirtay ay lahaayeen waan samaynaynaa oo sababaha keena mataqaanaa khilaafka iyo oo konton iyo waxaan ka wadaa 950,000 ayaa ku baxaysa inkastoonan ciwaankani ma wax lagu samayn karo daraasad baa kolkii horeba ay u qabsanayeen qorshahaba aanan maaragtay u qanacsanayn haddana daraasaddaasi ma dib bay u dhacday ma dhinac un baynu ka samaynaynaa khilaafaadku waa xuduudaha markaa dhinacii kale miyaad ma isku dhafbaayo cid kale idinla samaynaysaa mise innaga unbaa taa samaynaysaa samaynayna ma dib baad u dhigteen bal daraasaddaana inay sameeyeen in kale kama muuqato warbixintooda waa sektarka aan cadaaladda iyo hay'adaha amniga waxaad moodaa dhibaato fara badan baan soo marray intii isbeddelka ka horreysay dhibaatadii waxaa dhacday waxaad moodaysaa intii hore xorriyaddu waxoogaa inay baahday Soomaalidu wax dhib badan oo kale waxay ku dhihi xukuumaddu jilicsana kale waxay dhihi dhib fara badan laakiin waxaad moodaa hadda waxoogaa adayg oo fara badan inuu jiro oo xabsaad arkaysa dad xidhan oo maxkamada aan la keenaynin waxaan rabnaa hay'adda cadaaladdu in hoos loo eego isla meesha lafteeda arrinta dad waxaa jira maxaabiis fara badan oo ilaa 2,000 gaaraysa waxaan arkayay inay 52 marka sicir bararka baanta jira markaad eegtana 52 bir maxbuus kuma filaan karto waxa weyn ama dambi uu isagu awood u lahayn ama bahalkii ama uu ilaahay ku keenay hadduu galay deynaan hadduu xidhan yahay aan kadayna garaacitaankii iyo su'aalihii iyo wixii dhibkii hadii laga daayay dee tan dhaqaaleynta lafteeda in mataqaanay hoos loo eego way la quman tahay waxaan hayaa 4 talabixin talabixinta koowaad waxay ku saabsan tahay warbixinta mayna ka dhex muuqanin la dagaalanka dambiyada gaar ahaan dambiyada abaabuluna ee ka dhaca degmooyinka maamul magaalooyinka inkastoo wax badan laga hadlay xalinta khilaafaadka wax badan laga qabtay laakiin arrinta dambiyada abaabulada ka dhaca magaalooyinku waa arrin aad hadda dhibaato uga haysa magaalooyinka wixii laga qabtay iyo wixii lagu halbeegayay iyo markii sanadkii hore halku marayay inta midna kama muuqanin marka warbixinada markii la soo qoriyay in lagu soo daro waan talaha ma soo jeedin lahaa talabaad talabixinta la wada ku saabsan tahay xabsiyada sida noognahay waxaa jiri jiray xabsiga dhexe ee deegaanku lahaan jiray oo inta badan loo yaqaanay jeeloogaadeen waa la xidhay xabsigaasoo caan ku ahaa oo ku caanbaxay oo lagu yaqaanay inuu ahaa meel ay ka dhaceen dambiyadii ugu xumaay oo qof bani'aadama loo geysto ee uu qof bani'aadama geysto waa lagu saxsanaa in la xidho maadaama waxyaabo xunxun aad loogu xasuusanayo inkastoo in xabsiyo badan la dhiso iyo in boolis badan la qoraa ay inta badan calaamad u tahay dowladaha wax abriya oo falsafad ahaan aan tala bixin aan dadka shaqayaqaanka aan ku soo jeedinin laakiin hadda markaad eegto deegaankeenna xabsigu horta waa xafiis dowladeed wuxuuna qayb ka yahay la dagaalanka dambiyada haddii la waayo dadka dembiga lagu tumo meel lagu xidho way adkaanaysaa in la xakameeyo dembiyadii oo lala dagaalamo waxaan ognahay hadda dadka dambiilayaasha deegaankeena ka jira waxaa adag in la helo goob lagu xidho xabsiyadoo yar oo awgeed taas waxay sababtay in marar badan loo ololeeyo oo la yidhaahdo dadka dembiyada yar loo haysto gaar ahaan kuwa tuugada iyo waxa bal aynu cafinaynu sii dayno taasina waxay kor u sii qaaday in dembigii tuugada uu bato oo maamul magaalooyinkii iyo wixii ka jira dembi abaabul badan uu ka dhaco marka waxaan soo jeedi lahaa marka miisaaniyadda la qoondeynayo in xisaabta lagu darsado oo bal sidii dembiyada loola dagaalamaya loo xakameyn lahaa waa in xabsiyo badan la dhiso taa waan soo jeedin lahaa talabixinteeda saddexaad gunooyinka iyo mushaharooyinka la xidhiidha xirfadlayaasha sharciyada ka shaqeeya waxaan ognahay inuu jiray dib u habeyn lagu sameynayay hay'adaha cadaaladda dib u habeyntaas waxaa qayb ka ahaa in dadka hay'adahaasi ka shaqeeya bal la isku dhex qaybiyo si cadaalad loo helo laakiin hadda markii kormeerada ugu dambeeyay aan ku baxay waxaan soo ogaanay in inta badan ay jiraan degmooyin fara badan oo aanay joogin garsoor
iyo xeer laalin oo qayb ka noqon lahaa in dambiyada abaabul la dagaalamo sababaha kale ay tahay iyaga oo ku qanci waayay mushaharooyinkii iyo gunooyinkii ay qaadanayeen iyo maciishada kor u kacaysa haddaba si loola dagaalamo dambiyada laftooda abaabulan iyaguna qayb ka noqdaan iyadana waxaan soo jeedin lahaa bal in iyagana dib u eegis lagu sameeyo gunooyinka iyo mushaharooyinka la siiyo dadka xirfadlayaasha sharciyada ee ka shaqeeya goobaha noocaas oo kale ah su'aalihii laga soo jeediyay dhanka nabadgelyada baan si kooban u soo dhigi ee jawaabahooda arrinta la xidhiidha dambiyada magaalooyinka ka dhaca ama urban crimeska runtii aad bay u yar yihiin magaalooyinka deegaankan waa badan yihiin laakiin magaaladan jigjiga bay inta badan tuugo ay ka jirtaa marka tuugadaasu dadaallo badan oo xagga booliska iyo la qorsheeyey isku xidhka maamul qabaneedada magaalada yaa jira oo shaqooyin ballaaran laga qabtay haddana magaalo bulshadeedu ay maalin walba aad u kordhayso oo dad cusub ay kusoo biirahayaan way jirahayaan dhacdooyin marka dhacdooyinkaas waxaan is leenahay annagu xogow gaabis wuxuu ka jiraa dhanka fahanka bulshada lafteeda oo tuuggu yacni aqal walba askari tuugga ilaaliya lama dhigi karo dambiyada abaabulan ee kooxaha bay ciidamada ka hortagi karaan marka aqaladu waxaa loo baahan yahay inta badan tuuggu dadka ay xadaan waa dadka xogowga iska yaroon weeye waxbaad ka helaysaa guryahooda ay leeyihiin marka system iyaga laftooda amniyada ay ku sugtaan oo ka mid ah sugitaanka amniga ee xaafadaha tuugadaa jira shantii qoys xaafad walba waxaa laga yaabaa inay 2 shaqaale u joogto hadday hal waardiya oo jiingad yar ku darsadaan magaalooyinka waaweyn waa la sameeyaa oo tooshka habeenka uu ifiyo marka si wada jira tuugadaas xaafadaha u dhacaysa looga hortagi karaa laakiin waxa xagga amniga la xiriira waan dadaaladana waa sii xoojinaynaa arrinta la xiriidha casriyeynta faldambiyada dhacaya sidii lagu ogaan lahaa camera system wadooyinka waaweyn ee magaalada iyo meelaha muhiimka shaqadooda way socotaa waxaa iska kaashanaya Ethio Telecom booliska deegaanka iyo federaalka marka shaqadaasna insha Allah inay soo gabagabadaan ku rajaweynahay iyo sidoo kale in meheradaha waaweyn dadka iska leh hoteelada iyo ay sameeyaan security camera system iyaduna waa la amray arrinta la xiriidha keelayaasha iyo dhaqanka ciidanka keelayaashu guud ahaan aad baa loo yareeyay oo keelayaal badan oo hadda deegaanka ka jira ma jiraan marka maadaama numberkoodii la dhimay haddana security rateska jira iyo in baaritaano la sameeyo waa khasab waxaan samaynaynaa haddana in ciidamada lagu sii beeriyo tusaale ahaan jigjigiya goday inta u dhaxaysa 22 keelaa jiray hadda laakiin wax security keelaa 6 baan ku soo reebnay marka haddii keelayaasha la iska fasaxana amnigeena baa khalkhal galahaya marka waxaan isleenahay checkpoints-ka faraha badnaa ma jiraan hadda arrinta kontrabandiga la xiriira annaga hay'ad amni ahaan doorka ugu weyn ee ku leenahay waxa weeye inaan qayb ka ahaano la dagaalanka kontrabandiga weey gaar ahaan ciidanka maleeshiyada ee booliska kontrabandiga muxuu yahay baa wali la isla fahmi laayahay hay'adaha jibriga iyo innaga taasoo u baahan xafiiska ganacsiga iyo gudiyadaas oo wasiirkayga hore sheegay in la wada fadhiisto maxaa kontrabandiga horta in la yiraahdo kontrabandigu waxay u arkaan wax walba oo ganacsi sharci darro ah hadduu qofku xoolaha ka ganacsanayo wuxuu sharciga u haystaa marka sidaas darteed arrintaas waa arrin u baahan in faham dheeriya laga helo annaga iyo jibriga iyo bulshada ganacsatada isla fahanna weey wax la yiraahdo marka shirarkaana waxyaabo ka xun xagga booliska ahaan way jiraan oo ganacsiga la xiriira xuduudaha iyo in badan laga hadlay oo maashaashaal ba lagu sameeyo shuruucda ganacsiga haddana xoolo ay dadku daaleen in la iska qaato ma ogolaanayno dhacdooyinka aan ganacsiga ahayn ee xoolo suuqa jigjiga loo wadana markayna soo gaaraan waa laga wada fadhiistaa wixii markii laga garaabana waa la sii daayaa waxyaabaha caqabadaha jirana in la soo socotiyo baa loo baahan yahay hal su'aal baan soo dhigi lahaa kulli dakhligu waa wax dawladnimadeena iyo systemka guud aan ku dhaqaajinayno weeye marka dhanka dakhliga kulli dakhli aad fara badan baa degmooyinka saan ogeyn saarnaa marka kulli 6 bilood degmooyinka warbixinihii iyo dakhliga ay soo xariyeen way soo gudbiyeen xafiiskuna cross check buu sameeyay marka ma lagu kalsoonaan karaa warbixinta degmooyinka ay soo gudbiyeen ma tahay mid xaqiiqo oo dhab ah oo dakhli sidii loogu talagalay soo xareeyeen kulli xogaa aan hayno waxaa ka mid ah in documenti la xaray uu jiro oo haday tahay ulfurin ama capital oo software oo badan in degmooyinku si ay darajadoodu ay kor u soo kacdo maamuladuna ay goobaha shaqada ay u sii hayaan inay ay tartan ku galeen oo documenti la xaray aan jirin marka taas muxuu xafiiska dakhliga uga qorshaysan arrinka baajajyadu wadadii ma mari karaan talabaad taraatara baa la geliyay waynu ognahay maciishada maanta meeshay marayso iyo xaaladdu halkay taagan tahay 80% magaaladu waxay ku xidhiidhsan tahay baajajyada dadku waxay ka shaqaystaan qondoluriga
dheel workingay soo saaraan waa baajeesyada su-aashaasi waxaan weydiinayaa xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka waxa kalifay in baajeesyadii taraataraa la geliyo kadibna laga xidho wadooyinkii waxaad arkaysaa labada haadna mar baa la dhihi haadna ma maraysid haadkan una maraynin riskiga yaalla ha noo sheega xafiiska iyo sababta baajeesyada looga xidhay marka hore waxaan ku horeynayaa xafiiska ganacsiga warbixintiisa labada sadar ee ugu dambaysa waxaa ka muuqata inuu ka soo xareeyay kontrabaan deegaanka ka baxayay adduun lacageed oo dhan 454 milyan 419,000 riyaal inuu ka soo xareeyay kontrabaan deegaanka ka baxayay waa sax waa dakhli fiican laakiin lacagta ayada waxaan ogsoonahay inagu deegaankeena kontrabaanka ka bixi kara waa xoolaha ariga iyo geela sababta keentay shidaal lama safrino hubna ma safrino shacabkii hantidoodii un weeyaan ama ayadoo geel iyo ari oo lagu gaday oo la safriyey oo dhar lagu soo gaday ama skor lagu soo gaday baadee jibrigu qabteen dadka ayaga markaa maxaa uga qorshaysan xafiiska ganacsigu inuu nidaamka sharciga dalka inay ku ganacsadaan inuu gaarsiiyo shuruucdii u dhammaystiro shatiyadii ganacsigu u sameeyo su-aashaasaan yaan rabay inaan weydiiyo xafiiska ganacsiga xafiiska jibriga dhib badan baa ka jira waxaa jirta gaadiidka dhibaato gaar ay ku hayaan oo aan keelayada la mari karaynin baabuurta way qabsanayaan waxay leeyihin waan xaqiijinaynaa baabuurka inuu sharciyayo in kale si fudud baa lagu baari karaa baabuurka waxay ku weydiinayaan declarationkii baabuurka lagu canshuuray markaad u dhiibto waxay samaynayaan iyagoo oo smartphone-ka ay haystaan ka jeegarayn kara oo macluumaadka ka heli kara ayay baabuurkii la xidhayaa haddii baabuur lagaa xidho oo qof ganacsataa laga xidho ilaa 2 bilood bay ku qaadanaysaa marka arrintaas dhibaato badan baa xagga jibriga ka jirta arrinta konturbaanka dakhliga laga soo xareeyay 800 milyan arrintaas dakhli ma ahan dakhli aan ka soo xareeynay ma ahan balse waxa ay ahayd warbixin 8 bilood inbood ilaa taxsaas bay ahayd waxaa weeyaan marka alaabta la qabtay waa 2 alaabood wixii deegaanka ka baxa iyo wixii soo gala weeyaan qiyaas ahaan lacagta u dhigantay intaas moogi dakhliga laga soo xareeyay ma ahan libaanada sharafteena qaabka u fahmaan arrinta gaadiidka ee sharci darrada ee jibriga qabtaan taa waa sax way jirtaa jibri way qabtaan muddo sanad ka hor ee jibrigu technician Addis Ababa ay ka yeedhaan oo maaragtay loo xaqiijiyo gaarigaas inuu sharci ah ama inuu sharci ahayn taa waan ka soo celinay xafiiskeena u xaqiijiya wax soo faa hadda dhibaato ka taagan ma jirto gaari hadduu sharcigiisu dhammaystiran yahay saacad ka badan ma haysan karaan arrinta bajaajta ee odd iyo even lagu soo rogay arrintaa way jirtaa ka xafiis ahaan anigii maamulka magaalada iyo commissionka booliska qorshaan qaadanay deegaanada kale qaabka u shaqeeyaan inaan advance noqono ugu muhiimsan by the way caasimada kaliya ee bajaajta ka shaqeyso waa magaalada Jigjiga kaliya weyn haddaad xasuustaan in kalima garanayo laakiin taa option ahaan waxaan ku sameynay in public transport ee duugoobay ee wadada Wajaale Qabribax meelaha gobolada u kala baxa aan route-ka intaan ka soo celinay ee koodwan intaan siino public transport main road inay ka shaqeeyaan baan u qorsheynay taa qorshaas way jirtaa option ahaan qaabkaas aan uga gudbinay bajaaj laakiin ay magaalada ka shaqeyso highway inay cross gariyaan moogi inay wadada laami haysato magaalada in congestion keedin ay keento ma ahan arrinta shatiga import and export mandate xafiis maahan waa heer federaal balse cid walba open bay u tahay programkaasi so long as criteria-gii maaragtay looga baahna shakhsigaas hadduu buuxiyo shatigaas waa la siinayaa wax hortaagan ma jirto arrinta bajaajta sharci darrada taargo degmooyinka inta ugu badan xildhibaanadu ka dhawaajiyeen waxay ahayd bajaaj sharci un baa taarga la siiyaa laakiin bajaaj sifo sharci darra degmada soo gashay in maaragtay loo sharciyeeyo taa in badan bay su-aashan guddina way soo celceliyeen laakiin sharci maahan bajaaj maaragtay sifo sharci darrada maaragtay waddanka soo galay la sharciyo arrinta xoolaha waa arrin jirta weeyaan yes jibriga qaabka haddu socdaan waa crisis aad u xun weeyaan labaan u kala qaadi kow xoolaha maaragtay ugu tirada badan at least 15 iyo wixii ka sarreeya
ee commercial purpose loogu talagalay een ahayn consumption ama la isticmaalaynin qaar bay qabtaan baa jirta iyo kuwa inta ugu badan ay dadkan ka cabanayaan ee maaragtay ee warada ama meelaha magaalada gudaheeda ka qabtaan baa jirta arrintaas waa arrin jirta weyn 2 cisho ka horna waa la shirnay qoladan jibriga balse laakiin ayagana justification bay soo dhigteen arrinta marka qaabka miisaan u yeelanayso xafiiska madaxweynaha xafiiska nabadgelyada iyo xafiiska commissionka booliska iyo xisbiguba aan qorshe isla qaadanayd inaan maaragtay ganacsatadaasna u yeerno nimanka jibrigana loo yeero kadib halkaas direction cad isla qaadano taa toddobaad soo socda insha Allah kal fadhiga kadib waan qabanaynaa laakiin arrintaasi waa arrin jirta weeyaan arrinta alaabta la xaraasho taas dadkeen inta ugu badan anu meelahan garanay ma ahan meelahan garanay alaab la xaraasho dadka laga xaraashon baa ka faa'iideysta si ay khasaare kala u galin laakiin practically waxaan arkay 6 bilood ka hor gaariga la xaraashay anu gaarina jilay anu ma xaraashaanku ma qaadanayo le perception le baa dadkeena aaminsan yihiin taana wacyigeena aad u hooseeyay inta ugu badan laakiin inta ugu open by tahay tenderkaas xaraashadii la dhaqo qof walba open u tahay laakiin dadkeena ma tartamaan inta ugu badan waa practically waxaan arkay weeyaan in guud ahaan su'aasha xafiiska inta runbaa ku soo koobay aad iyo aad u maasantay waa xafiiska arrimaha biyaha waxa weeye biyo-gelinta raaso dhibaa ku jira waxa weeye treatmentiga gaar ahaan qualitygiisu aad buu hooseeyaa sidii barkadaha loo dhisayey caadiga ahaa ee dhagaxa ahaa baa loo dhisay treatmentiga standardgii loogu talagalay treatmentyada looma dhisin inuu dumana waa wax suuragal ah isagoon weliba xadhiggii laga jarin marka arrinta xafiiska biyaha maxaa uga qorshaysan inay ka qabtaan annagoo bogaadinayna dadaalka xafiiska biyuhu sameeyey waxaan ku tala bixin lahaa maadaama dalagii daryeel barnaamijkaas uu jiro meelaha webiyada leh biyo xireenada waaweyn haddii ay shaqaynayaan ceelasha naftooda in irrigation loo isticmaalo cabitaanka keliya ma irrigation in macnaha muxuu ahay loo adeegsado bulshadeena meelaha webiyada aynu marayna ceelasha naftooda dhulbeereedka deegaankeena meel aan dhulbeereed ku habboonayn ma jirto way yar tahay si macnaha kuwa webiyada una marin naftooda ay beeraley u noqdaan oo beeraley loogu dhigo oo xoolahooda naftooda ay dhaqashada casriga ay ugu bartaan ceelasha naftooda in irrigation loo isticmaalo lana hirgeliyo oo laga daayo matoorka hadday webiyada tahay hadday ceelasha tahay hadday biyo xireenada tahay matoorada shidaalka bulshadeena haynteeda maadaama ay yar tahay waxaan ku tala bixin lahaa in solar system la hirgeliyo aan ku tala bixin lahaa oo nidaamka solar systemka la hirgeliyo si bulshadeena midka danyar iyo midka kaleentaba isku mid ay u noqdaan wax soo saarka uga qayb qaataan waan ku tala bixin lahaa oo qorshayaasha deegaanka in lagu daro heer deegaan waxa lagu xalinaya in lagu xaliyo degmo kasta at least in iskaashatooyin 3 ama 4 beeraley ama in laga asteeyo oo toos loo caawiyo oo barnaamijyadaas toos looga caawiyo heer deegaan lagu caawiyo heer deegaan miisaaniyadda qorshayaasha marka la diyaarinayo lagu daro sidaasaan ku tala bixin lahaa arrinta solar systemka degmooyin 12 yaan jeclahay in qadka ay ku jireen oo qorshaha u hayan loo sameeyo ay degmada mustaxiil kowkeeda iyo fiirfiir taa iyadana weli lama bilaabin in si guud degmooyinka kale laga sameeyna waan jeclahay ama waan filaa taa iyadana xafiiskan uu ka jawaabo waan soo jeedin lahay xafiiska biyaha waxaan ognahay 30 sano ugu dambeeyay deegaanka waxaa laga sameeyay kaabayaal biyo oo fara badan waxaa inta badan xoog la saarayay sidii loo ballaarin lahaa kaabayaasha biyaha hase haatee waxaa muuqata in kaabayaashii biyaha la sameeyay tira ahaan way bateen laakiin tayadoodii baa aad u yaraatay kaabayaal biyo oo la sameeyay sanadihii ugu dambeeyay ayaan hadda adeeg bixinin kuwii hore jiray baa sii burburaya marka inaan ballaarinta kaliya xoog la saarinay bal kaabayaasha biyaha laftooda sidii tayo loogu yeeli lahaa oo dadku uga cabbi lahaayeen in xoog la saaro waan soo jeedin lahaa waad maasantiin kale raasa biyo gelinteeda treatment plantigu aad buu u liitaa waa run aad buu u liitaa tayadiisu way liidataa waxaa la sameeyey isbeddelka ka hor shirkaddii la odhan jiray Liu Enterprise-kaana samaysay si aad u liidatay oo u samaysay qorshaha annaguna wuxuu yahay kan in lagu sii cabo mid kale oo standard oo saxana garabkiisa laga sameeyo mustaqbalka haddii la yidhaahdo waxaa kaloo iyadana jira oo laga hadlay gobolka Nogob underground water ma laha baa tiraahdeen marka waxaan leenahay badankiisu ma laha meelihii ilaha waan ka qodnay tusaale ahaan Dar es Salaam oo dhuxun ka mid ah waan ka qodnay waxaa kaloo ka qodnay reebada meesha la yiraahdo oo ka mid ah sagag baan ka qodnay gobol qaybahan kale ee dhuxun la yiraahdo Garbi iyo Rashagax iyo Ceelal Weyleeyina waa laga qoday laakiin goobaha kale maxaa bedelo oo la sameynaya xafiiska waxa uu sameeyay dhaaman baa laga diyaariyay
tusaale ahaan sagag oo kale dhaam baa 72% maraya hafardhaama meesha la yidhaahdo ceel weyne xafiiska dooxooyinka dhaam ka wada hafardhaam sidoo kale garba waxaa loo sameeyey dhaam baa loo sameeyey irtidaama meesha la yidhaahdo cayuun biyogelintii baa iyada lafteeda tenderkii baa socda wasaaradda biyaha federaalka oo mar labaad lagu celiyey dhuxun waxaa sii jiri jiray dhaam baa jirayay ku labaadna hadda waan soo darisnay oo ah hafardhaam marka waxaan leenahay lama ilaawine dhammaan degmooyinka waxaa ka jira adeegyo biyo ayaa laga wadaa hawshooda markii laga reebo degmada xaraareyna mustaqbalka markaan budget u helo ayaan xalkeeda raadinaynaa sidoo kale waxaa laga hadlay degmada ceelkari qabalaha masli iyo haraburka ceelasha waan qodnay laakiin ceelashu milix bay noqdeen kol hadduu ceelku milix noqdo waa in la joojiyo halkaa lagu daayo qalab kaloo lasii geliya khasaare kale lama sii galayo arrinta la xidhiidha magaalada jigjiga phase 2 mashruucani wuxuu emergency phase buu ahaa oo loogu talagalay in biyo lagu soo gaarsiiyo magaalada mashruuca asal ahaan qorshihii loogu talagalay uu dhammaaday 100% magaalada in la soo gaarsiiyo systemkii hore magaalada ka jiray lagu xidho ahaa kii waa la sameeyey laakiin hadda ka hor waxaan ka dardaar warinaynay ka ooyeynay wuxuu ahaa in systemka magaalada ku jira distributionku inuu aad u liito oo system oldia oo waliba aan la garanayn meeluhu ku jira inuu yahay waxa inagaga soo bixi doona markaan biyaha ku soo daynaan ogaan doonaa maalina muddo hadda 2 bilood iyo bara waxaan la xarbiyeynaa oo la dagaalamayna systemka weeyaan mararka qaarkood biyo la'aan magaalada ku dhacaysa laana waa laga xidhaya markuu meelo badan ay dhibaato ka timaado marka hadda taasaanu muddadan dhow hadda muddo bil gudaheeda inaan wax badan ku xallino ayaan rajaynaynaa hadda inaan xadhig jarra rabnay laakiin waxaa tala ka timid madaxweynaha iyo xafiiska madaxweynaha inaan horta bal distribution-kan khaladka faraha badan ka jira inaan wax ka xallino saa darteed marka xalkeedii baa ku jira laakiin mashruucu 100% uu dhammaystirmay intii loogu talagalay laakiin distribution-ka sixitaankiisa oo hadda ka hor barnaamijku ka jiray kaas waan ku jiraa hadda waan samayn doonaa hadii la yiraahdo halka su'aasha waxa weeyaan waa degmada Gursum iyo maxaan ku raday biyogelinta la sheegayo waxa weeyaan waa degmo kale waa magaalada dhagax la saan filayo daraasad baan ka samaynay daraasadana budgetkeedii baan hadda aynu cayna qaban doonaa hadii la yiraahdo in la biyogeliyana mustaqbalka dhow waan rajaynaynaa alweynaha la sheegayay biyogelintaasi waa tii SDG-ga ama MDG-ga waa hore ahayd biyogelin jirta ma aha nintaasi laakiin dhaamkaas ay insha Allah u noqon doona soo biyaha ka cabto aad ma santi walaga warhayaa azmadii ka dhacday xagga waxbarashada secondary ardayda jaamacadda geli lahayd waxaa jirta affirmative action loo sameeyey deegaanada qaarkood marka waxaa jirta middan kilada soo koraya ka mid baan nahay dhibcaha la siinaya loo soo yareeyey waxaa kaloo jirta xoolo dhaqatada dhibca loo sameeyey oo loo yareeyey baa jira deegaankiina wuxuu caan ku yahay xoolo dhaqatanimada fursaddaa innaga waa laynaga qadiyey sababta innagu aan ku weynay ilaa hadda ma garanayo wasaaradda waxbarashadu bejkeeda ayuu ku qoran yahay xafiiskeenna waxbarashadu ma oga miyaa mise qas baa laynooga reebay taas waa su'aal bilaab su-aasheeda ugu horreysa waxbarashada waxaad moodaa dhibaatooyin badan baa ka jira waxbarashada saan wada ogeyn waxbarashada heerka ay hadda inaga marayso waan ognahay gaar ahaan natiijada fasalka 12aad ee hadda taagan dadaal badan baa xafiisku samaynaya ama shakhsiyan xoogaal baan ka ahay laakiin waxaad moodaa dadaalka uu samaynaya xafiisku iyo wacyiga ka taagan xaggooda inuu hoos ka jirin heer dugsi ilaa heer degmooyinka iyo maamul magaalooyinka gaar ahaan warbixinta guddiga joogtada ah ay iyo qiimeynta ay soo sameeyeen meelo badan waxaa la soo ogaaday caqabadaha ugu waaweyn ee jira inay yihiin macallin la'aan manhajka xafiiska heerdeega hadduu geeyo stiil waxa weeye macallin dhiga hadduuna joogin dhibaataa ka taagan oo dhibaato weyn baa ka taagan arrinta labaad waxa weeye miisaaniyadaha marka la qabanayo degmooyinka waxaad moodaa waxyaabihii priority-ga innaga inoo ahaa ee wax lagaga qaban lahaa inaan la qabanayn tusaale ahaan hadda xafiiska waxbarashada oo kale barnaamijka jekib world bankigu uu finance garaynayay dugsiyada iskuul garantiga lagu siinayay barnaamijkaasi uu joogsaday waxaa lagu amray degmooyinka iyo maamul magaalooyinka inay iskuullada gaar ahaan dugsiyada sare u qabtaan waxyaaba la yidhaha block guarantee siday guddiyadu soo warbixiyeen guddiyada joogtada lama qaban arrintaas
marka mas-uuliyad darro badan baa jirta xagga hoosta oo aan la iska xil saarinba waxyaabihii awaamirtii xaggan laga bixinayay ee hoos loo dhaadhicinayay ahaa inay miisaaniyadii loogu talagalay macallimiinta oo qabtaan waxaan ka war haynaa macallimiin fara badan oo mushaar furkii iyo dalacsiintii la siiyey sanad iyo 2 sano iyo qaarkood ay sanad iyo bar haystaan miisaaniyad la'aan awgood arrin la leeyahay marka arrimahaas siday wax inoogu hagaagayaan waxaad moodaa waxbarashada inay wax badan ay iska bedelay haddaan waxa weeye wax loo hurin oo aan la samayn dadaalkii iyada laftigeeda miisaaniyadii iyo khayraadka wax lagaga qaban lahaa marka arrinta koowaad waxa weeye miisaaniyada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka ay xafiisyada waxbarashada u qabanayaan waxay u baahan tahay in hoos loo eego baahiyaha aynu hadda eego aynu loo baahan yahay in laga adres gareeyo heer dugsi haddaan waxba laga qaban natiijada waxbarashada waxba laga qaban maayo marka arrintaas waxaad moodaa haddii aan loo dhaqaaqin inay stiil sanadka soo socotana waxa weeye oo dhowr bilood ka harsan yihiin hadda imtixaankii kii unbaan rajeynayna inuu soo noqdo natiijadii arrinta labaad waxa weeye waa nolosha macallimiinta waxaa jirta motivation gap arrintaa la xidhiidha una oo waxa weeye macallimiintii motivated ma aha oo waxa weeye mushaarkoodii iska hooseeya upgrade-kii loogu talagalay laguma samaynayo arrinta kale ee waxbarashada waxa weeye warbixinta waxaa ku caddayd in 43% ay gabadhuhu ka yihiin diiwaangelinta halka wiilashu 57% ka yihiin waa gaab weyn marka la eegayo gender parity index-ka lagu cabiro waxa weeye ratio-ga gabdhaha ka qaybgalkooda aad u hooseeya marka arrintaasi waxa weeye dadaal badan bay u baahan tahay laga sameeyo sidii kor loogu soo qaadi lahaa baahida koowaad ee maanta jirtaa waa macallin macallinta aysan si loo helo xal waarana loo helo waxay u baahan tahay ardayda 12ka ka soo baxaysa in 60% dhibcaha jaamacadaha ardayda heshay in 60% laga dhigo macallimiin in laga dhigo 4 sano markay xariisnaadaan kadib ardayda soo baxday tusaalahaan 1000 haddii ay tahay ardayda 12ka heshay dhibcaha jaamacadda 60% haddii macallimiin in laga dhigo jaamacadahana lagala hadla ay noqoto waxaan helaynaa macallimiin isdaba joogto oo sanad walba sector walba oo baahi baa ka jirta laakiin mudnaanta koowaad in la siiyo waxbarashada in la siiyo macallin iyo arday isfahansan ma haysto deegaankeena bulshadeena deegaanka waxbarashada ma haysato macallin iyo arday isfahansan macallinkii ma yaqaano luqadii naftiisa perfect kuma aha ardaygiina sidoo kale si lamid ah deegaanada kale waxay helayaan macallin u dhashay deegaankaas haddii ay luqadii ay u dhasheen luqadii manhajku ku baxay isla fahmi waayaan luqadii u dhasheen buu ugu fasiray oo uu sheegaya macnaha deegaanada kale fursadaas ay haystaan laakiin deegaankeena macallimiin u dhalatay si loo helo ardayda 2-alifkaani waxaan isleeyahay waxaan ku tala bixinaya ardayda 2-alifka in mudnaanta koowaad la siiyo macallimiinta in 60% loo qaato macallimiin in laga dhigo khayraadka deegaankeena ceegaaga naftiisa wuxuu u baahan yahay in lagala soo baxo macdanta ceegaagta in lagala soo baxay u baahan tahay iyada nafteeda in percent la siiyo dhakhaatiir baa loo baahan yahay naftooda in la siiyo si barnaamijyada dalag iyo daryeel iyo dhaqo oo dhaafso loo hirgeliyo naftooda waxay u baahan yihiin sektaradaas naftooda in percent la siiyo marka jaamacadaha inay loo asteeyaan maaha in xafiiska waxbarashada uu liid garayaan anigu tala bixinaya arrintaas oo jaamacadaha xuduudda shaqaale aan u baahannahay nidaamkaas loo raaco xafiiska waxbarashada haddii aan u daadego kulliba waa laga soo hadla inta ugu badan waana arrin inoo wada taallo waayo intiinan maanta inaan xildhibaan noqono macallin baan na soo baray madaxweynaha inuu madaxweyne noqdo macallin baa wax soo baray taa marka waxaan qabaa meelaha ugu badan hadda laga tabanaya macallimiinta ay tahay in xafiiska intuu hoos u eego upgrade-ka la badiyo upgrade-ka macallimiinta dhibaata ka jirta la badiyo mishaar kororku sidoo kale dhibaata ka jirta taa iyadana waa su'aalaha nagu soo noqnoqday ka mid tahay waxaan qolaa xafiiska waxbarashada weydiinaya hogaaminta dugsiyada dhibaata ka jirta maamulo sharci ee inta badan dugsiyada kama jira absolute degmooyin waxaan ogaa qaarkood xitaa aan maamulo sharci lahayn ba absolute-ba taa markii in hoos loo eego iyadana waa qabaa hogaaminta dugsiyada leadership-ka ama management-ga baratay la xoojiyey ama tababar nooca la qabto waan qabaa waxaa kaloon raacin lahay arrinta xafiiska waxbarashada oo dib ugu soo noqotay luqadda carabiga iyo luqadda ingiliishka macallimiintii dhigaleed maxaa laga damacsan yahay dugsiyada hadda caadiya oo ordinary-ga socdo yaa ay dhibaato ka jirtaa carabigii macallinkii dhigalayd qorshe ahaan maxaa xafiiska ugu qorshaysan goormaa la tababari goormaa la dhaadhicini taa iyadana waa su-aal aan xafiiska ku yeleleecin lahay ugu horreeya intaa la xidhiidha barnaamijka kamista ah waxa deegaankeena looga qabtay
horaan u jiri jiray affirmative action deegaanada xoolo-dhaqatada siin jiray laakiin sanadkan wasaaradda waxbarashada isku day inay wax ka beddesho marka waxay ka qabteen deegaankeenna iyo deegaanada xoolo-dhaqatada ahaan jiray oo markaa u qaateen inay macnaha ugu yeedheen deegaanada soo koraya ama emerging nations waxay ka dhigeen natural science-ka inay ka qabtaan 224 halka social science-ka ay ka qabteen 192 oo marka u dhiganta 32% arrintaas marka waxaynu tirahaan helnay markii halka ay ka qabteen 969 laakiin arrinta annagu waan ka falcelinay dood baan kala galnay wadahadal kadibna dib baa loo eegay waa la saxay marka hadda waxaa laga qabtay natural science-ka iyo social science-ka waa 30% waxaa markaa inoo soo korodhay 523 arday baa hadda fursadda waxbarashada kabista heshay marka tirada guud ee helnayna waa 1492 marka taasna waxaa ku tiri dadaalka aan sameynay runtii arrintaas xukuumad ahaan iyo xafiis ahaanba wasaaradda waxbarashada waan ku qancinay waxayna ahayd mid iyagu markaa ay talagalay qaateen laakiin markaan ka qancinna way saxaan way ka noqdeen arrinta macallimiinta oo runtii aad soo noqotay macallimiinta waa la socotaan waxbarashada halbowle u yihiin marka deegaankeenna macallin la-aan kama jirtay macallin yaraan baa ka jirta iyo meelaha qaarkood tayada macallimiinta labadaa dhibaataba way jiraan meelaha qaarkood macallimiintu ama gobollada qaarkood ama degmooyinka qaarkood macallimiinta laga yaaba maadooyinka qaarkood inay ku yaraadaan laakiin macallimiintu way joogaan meelaha qaarkoodna yari baa jirta gaar ahaan degmooyinka fogfog ee duruufahooda markaas in macallimiinta ay ku noolaato ay ku adkaanayso waayo macallimiinteenna deegaan ka shaqaysa gaar ahaan dugsiyada sare waa macallin aan deegaanka u dhalanin oo deegaano kale ka yimid marka laba arrin baa isbiirsaday sanadkan macallimiinta markay fasaxa tageen ilaa 600 oo macallin baan xilliga loo baahnaa soo noqonin taa marka waxay keentay maadooyinka physics-ka xisaabta chemistry-ga biology maadooyinka science-ka iyo kuwan xisaabta ama luqadda in halkaas uu ka yimaado ma garanaysaa in macallimiintii loo baahnaa aan la helin laakiin markii aan dadaal badan samaynay wasaaradda la xidhiidhnay macallimiinta qaarkood u yimaadeen kuwana waan shaqaalaynay marka gaabku hadda 600 waa ka yaryahay ilaa 300 oo macallin way soo laabteen laakiin si guud ahaan macallimiinta dugsiga sare ee dhigaya maadooyinkan way nagu yaryihiin waayo dhibka jira waa laba arrimood oo ah innaga bulsho ahaan naftirkeeda macallinku maxaan u aragnaa waxaa loo arkaa macallinka xirfad uu qof shaqo waayey uu galo oo ardayda markay dhammeeyaan dugsiga sare ee jaamacadaha lagu qoro ma xushaan yacnaa macallinnimo inay bartaan waxaana intaas taa ugu wacan bulshadii oo runtii u arkaan inay macallimiinta liidayaan duruufaha dhaqaale ee danaga ku xereeraysan marka taasaa keenaysa in ardayeennu aysan gelin sectorka waayo maxaa yeelay ardaygu markuu xulanayo maadada isaga iskale ikhtiyaarka laguma qasbi karo maadada uu xusho ama ta koobaad ama ta labaad ama saddexaad baa loo tixgeliyaa marka inta badan ma xushaan deegaanadan kale maadaama uu saturation ka jiro xagga shaqaalaynta ah iyagu macallimiin bay xushaan dadkan jaamacadaha gelaya marka saas bay inoogu timid kulle anna wax fiisahaan qorshe ahaan baynu wadnaa in jaamacadda heshiis baan la galnay macallimiin deegaanka u dhashay inoo tababaraan digrii ilaa shahaadada labaad macallimiinteenna hadda dibloomka ama certificate-ka aan aqoontooda kor u qaadno kulliyadaheenna kor baan u qaadno dee golahan sharafta leh baa ansixiyay bayaankii kor loogu qaadahayay kulliyadahan waxaan rajaynaynaa inay macallimiinta inoo tababaraan marka si guud ahaan qaab dhismeedka xarumaha waxbarashadan xoojinno iyo daryeelka macallimiinta iyo mushaharka gunnadooda oon ka dadaallo oon package u samayno taana waan wadnaa kulli xukuumad ahaan marka waxyaabaha haddaan hagaajinno oo macallinkii noqdo xirfadle runtii yacnaa ay danaynayaan bulshada iyo dhammaan ardaydeena oo kale oo qofkii mushaharkiisii iyo noloshiisii iyo xuquuquhu laha u helayo isla markaana daryeel loogu daro waxaan isleeyahay macallimadu waxay noqon doontaa yacnaa xirfad soo jiidasho leh baahidan hadda in haysan way ka baxsan lakin waqti bay qaadan doontaa marka qorshayaashaanada hadda ka mid bay tahay golahana markay xilligeedanu la wadaagana insha allah arrinta ah ardayda ha lagu qoro 12aad markay dhammeeyaan inay macallimiin noqdaan nidaam baa jira ardayda jaamacadaha ku galaan oo dal ahaan aynu kala mid nahay marka nidaamkaa kama bixka dhibcaa jira ardayga ay tahay in lagu qoro jaamacadaha uu markaas doonayo xulashadana isagaa iska leh laakiin waxaan samayn karaa ardayda yacnaa dibloomka ah inaynu ku dhiirigelino inay garanaysaa ay macallimo bartaan dibloom kadibna upgrade u samayno taana waxay ku xidhanaysaa sida aan ugu dhiirigelino ama mudnaanta aan u siino daryeelkooda iyo gunnooyinka iyo markaa mushaarooyinka loo baahan yahay marka si guud ahaan macallimiintu waxay u baahan yihin qorshe gooni ah sida la soo jeediyey xafiisaan iyo xukuumad ahaanna waan ku tala jiraa hawshaan waxaan rajaynaynaa golaha xilliga markaa munaasib inaan la wadaagno xagga luuqadda waa inagii waxaan xukuumad ahaan isla qaadanay fasalada dugsiyada dhexe ee 7 iyo 8 in manhajkooda lagu diyaariyo luuqadda ingiriiska si markaa ardaydu markay dugsi sare galaan iyagoo luuqaddii garanaya ay markaa u galaan taana diyaar garowda waan dhammaystiray sanadka dambana insha allahu tacala waan bilaabaynaa luuqadda carabiga
iyadana saas kale golaha fulintu uu go'aamiyey xafiis ahaana diyaargarowdan ku jira annagoo la kaashanayna hay'adaha marka ay khusayso taana waxaan isleenahay sanadka soo socda oo kale in iyadana la guda galo marka qaabkii loogu dhigi lahaa su'aasha la xidhiidhay xagga genderka waxaan la yar xidhiidhnay key performance indicatorska ama halbeegyada yacni waxqabadka xafiiska in lagu xusay ahayd marka taa kule warbixinta annada ku jirtay laakiin warbixinta golaha lala wadaaga maadaama ay koobnayd saas baa looga reebay laakiin waa muhiim inaad ogaataan halbeegyada meeshay marayaan gaar ahaan xagga saamiga macalinka iyo ardayga buugga iyo ardayga fasalka iyo ardayga waa halbeegyada waxbarashada lagu cabiray tayada markii la eegayo ama xagga efficiencyga markii la eegayo drop outka ardada ka baxday ardada dhammaysay ardada dhacday marka halbeegyadaas oo dhan warbixintaanu inta badan way ka muuqdaan golahana waan garanaysaa markuu sanadka dhamaado waa lala wadaagi doonaa hadda maadaama lasoo koobay arrinta gender disparity-ga gabdhaha iyo wiilashu way kala badan yihiin waa arrin jirta dhaqan ahaanna dee walow hadda isbeddel fiican uu jiro gabdhaha inta badan mudnaanta xagga waxbarashada lama siin jirin hadda laakiin isbeddel fiican baa jira weli laakiin wiilasha ayaa ka badan 75% baan maraynaa oo ah meesha ay 100 wiil ka dhiganayaan 75 gabdhood baa yaa iskuulka dhiganaysa ama dugsi hoose dhexe ha noqoto ama dugsi sare taana kule wacyigelinteeda iyo dadaalkeeda inooga baahan tahay idinkuna gol ahaan maadaama xildhibaanadii bulshada soo dooratay qayb baad ka noqon kartaan xagga iskuul grantiga ama block grantiga waa arrin muhiim ah oo runtii iskuulaadkeennu waa adeeg bixiyaal waa meesha aan isdhihi karro waxbarashada way ka socotaa oo adeeggii baa ka qabsoomaya laakiin resource ma gelino ama budget ma gelino sanadkan runtii dadaal baan samaynay guddiyaan u diray degmooyinka iyo gobollada qorshaha la samaynayay degmooyin qaarkood way u qabteen degmooyin qaarkoodna uma suurtagelin laakiin arrintaa in la xoojiyo waan qabaa oo aynu dugsiyadeennu ay noqdaan dugsiyo maamula waxyaabaha shaqada ku qabanayaan budgetkii loo baahnaa ama block granty in markaas ay degmooyinka u qabtaan arrintaana degmooyinka inta badan iskale arrinta iskuul grantiga maadaama dee federaalka inaga caawin jireen way istaagtay laakiin waxaan ku bedeli karro waa block grantiga mar kale aad baad u mahadsantihiin talooyinkiina la gashaan baan u qaadanaynaa su-aalaha soo jeedisan intaasan kaga jawaabay su-aalaha markaan u gudagalo iyo talabixinada su-aashayda koobaad waxa weeyaan waddada goday afcadde latwan si fiican uma socoto walow xafiiska jidadka dadaalo badan geliyey qolyaha federaalka ee wadana cagajiid fara badan baa ka jira lootuu horta hargeelle afcadda ahayd shirkad turkiya ku guulaysatay waxay weyday bangi garantigii bay weyday markay bangi garantigii weyday mashruuca waa laga kansalay weli shirkad kalena lama siin mashruucuna waa federaal xukuumaddu kolley xafiiska madaxweynaha waraaq buu qoray intaan ka ognahay arrintaa bal xukuumaddu wixii ay ka qabatay inay noo sheegto waan soo jeedin lahaa marka jidadka eegtid gobolka afdheer jid baa ka socda hargeelle ilaa goday loogu talagalay jidkaasi 5 kilomitir xataa wax aan dhammayn baa carra quman laga dhigay marka arrintaas waxay u baahan tahay in wax laga qabto jidad kale oo aad u jiitamaya jira 5 sano oo iyo waxyaan qaarkood xaqan xataa laguma soo darin kuwii taageerada la siinayay labadaa jidba kan wardheer iyo kan afdheerba laguma soo darin marka arrimahaas waxaa uga qorshaysan xukuumadda bal sidii loo dardargelin lahaye ugu yaraan sanadkan meel fiican ay u gaari lahaayeen aad baad mahadsan xafiiska jidadka isku xidha beercaani iyo imey muddo 3 sano ah way go'an yihiin ma shaqeeyaan kulankii labaad ee golaha waxaan ka sheegnay in jidadkaasi dhaawac soo gaadhay uuna fududaa laakiin xafiisku wuxuu ballan qaaday inuu tiim u dirahayo waxna ka qaban hayo manay dhicin muxuu ugu maqan yahay dadka degmooyinkaas oo inta badan waqtiyada xilli roobaadka go'doon gala yaan iyadana weydiin lahaa sidoo kale waxaa jiray jidad qorshaysnaa oo qaybta xafiiska fandhiyada ku jiray libaax fuul iyo qoraxda oo beer caana iyo danley xafiisku u wareejiyey waa sax meel ka baahi badan inuu u wareejiyey laakiin baahidii halkii weli way taagan tahay innagana ka xisbi ahaan waxyaabihii ballanqaadka ahaayeen dadka baahihii aan ka soo guraynay manifestadii aan ku howlgalaynay inagoo xisbiga aragtidiisa iyo soo bandhigayna weli halkii bay inoo taagan tahay marka haddii marka hore ay abaara jireen dabcan haddana duruufo kale way jiraan oo abaartaa la mida laakiin mashaariicihii la firiisgareeyey xafiiska iyo xukuumaddaba si guud way dadku way uga ordhowrayaan su-aasha saddexaad jidka
qooxle dharraayo qooxle gudgud waa jid qiyaas ahaan 70 kilomitir ah 5 sanoona qaatay jidkaasi togog iyo buuro iyo maartay caqabado ma maro lacagtii loogu talagarayna boqolkiiba inta badan way baxday kala badhna ma joogo maxay tahay dhibtu yaa dhibta iska leh xafiisku muxuu go'aan uga qaadan layahay kontraktarlaha intaa lug jiidahaya shaqada sanadii u dambeeyay miisaanad baan qabanaa dhinaca jeedka miisaanada aan qabanno ma xasuusto 2 kilomitir ha ahaatee mashruuc wadda oo xariga laga jaro xafiiskaas fuliyo ma xasuusto marka laga tago xafiisyada kale wadooyinka ay fuliyeen xariga laga jaray miisaanada waynu qabanaa su'aasha jawaabta marka su'aasha la weydiinay jawaabta waxay xafiisku mar walba dhahaa budget deficit waxay dhahaan su'aasha weydiinay marka waxay tahay waxaa jira mashaariic ay ka mid yihiin goldoox iyo garba dhaxbuur mar walba sanad miisaanad baa loo qabtaa tabayaaqada sanadkana waa laga wareegaa marka su'aashaydu waxay tahay haddii xafiisku aanu awoodi karin wadooyinka faraha badan miisaanad sanad walba u qabanaya inuu dhammaystiro maxaa diiday hal waddo ka mid ah kaliya intuu miisaanada qabsan inuu dhammaystiro su'aaluhu waxay u badnaayeen su'aalaha qaybta federaalka iyo kuwan deegaanka fuliyaba kuwa federaalka markaan isku qabto wadooyinkii u dambeeyay wadooyinka federaalka maadaama caqabad ka jirtay dal ahaan cash flowgii iyo lacagii la helayay sideedii maadaama loo helin arrimaha ayaa jiitan keenay mashaariicda federaalka walow markaad eegtid deegaanada kale deegaankeenu ka fiican yahay labada waddo hadda xildhibaanadu ay sheegeen tan goday hargeele iyo wadadan kale ee wardheer qabridahar si fiican bay u socdaan hadda gudoomiyaasha goboladu way joogaan waa la weydiin karaa marka si fiican bay u socdaan dhibaatooyin xagga ka jiray miisaaniyadda iyo arrimahan hard currency-ga u baahan sida daamurka oo kale arrintaana dal ahaan waxa loo qaatay sidii hadda laga yeelay fertilizer-ka oo kale in shirkaddan jidadku ay soo iibiso kadibna saa kontraktarada loo siiyo marka wadadan wardheer qabridahar hadda 15 kilomitir laamigii waa la saaray marka in magaalada lagu xidho laba meelood oo waxa jira u baahan in la xaliyo arrintan magdhowga marka gobolkana arrintan waan kala hadalay marka wadooyinku saas ay u socdaan wadooyin kale oo la bilaabin baa jira oo xildhibaanadu ay soo qaadeen waxa kamid ah wadadan goday hargeele looto oo kale sanadkan 3 waddo bay dal ahaan loo qaaday qorshe ahaan wadadan goday lootuga iyo wadadan kale qalaafo mustaxiil iyo wadadan qundi guradhaamole marka 3daa waddo ayay qorshe ahaan qabteen bahayd laakiin markaad eegtay xaaladda miisaaniyadda iyo habka lacagaha loo helayo aad u adag rajo saa u sii weyn kama jirto markay noo sheegeen marka mashaariicdii hore inay dhameeyaan inay xoogga saaraan bay ayay ka dhigeen waddo kale oo xagga federaalkan ku lalayo waxaa jira xildhibaanadu ay soo qaadeen oo ah wadadan email ilaa goday xafiisku hadda ka hor wuxuu sheegay bay yidhaahdeen in maadaama ay jeexjeexyo badan iyo roobabkii saameeyey waan tegaynaa run ahaantii maadaama wadada gacanta federaalka wadooyinka federaalku maamulo dayactiro ay ka mid tahay qolyaha baan u dirnay waana ku guulaysanay hadda marka email ilaa 97 kilomitir dayactirkii bay hadda wadaan ilaa beer caanon inay soo gaarsiiyaan qorshaha way nala qaateen haddii lacag loo helo laakiin 97 ayaa qorshaha in 0 ilaa 97 marka email laga yimaado inay dayactiraan wadooyinka markaan u soo noqdo kuweenan deegaanka wadada u horeysa ee arrinta la yidhi qooxle dharraayo godgod wadadan jiitan badan ba hadda ka hor ka jiray ahayd laakiin muddooyinkii u dambeeyey xooggaan saarnay iyadoo 2 kilomitir socota wadadu ilaa muddo 3 sana iyo hadda 31 kilomitir bay socotaa si fiicanna way u socotaa arrinta la leeyahay lacagtii wada qaatay arrintaa waxba kama jiraan wadadan 400 milyan bay u baahan tahay lacagtuu qaatayna 100 milyan wax ka yar weyn marka arrinta waxba kama jiraan arrinta kale ee qandaraaslii baa ka soo baxayana iyada laftigeega taana waxba kama jiraano qandaraaslu sub contract buu ku siiyey shirkad machinery badan haysata marka shirkadaasa maadaama machinery badan meesha geeyeen mashruuc kale oo garbo ay ka wadeen inay u soo qaadaan qayb ka mid ah weeyi laakiin ma aha wax de machinery laga soo rarayo oo arrinta ma jirto wadooyinka
maxay u dhammaan laayihiin oo xariga looga jiri laayahay hadda kahor waad ogeydeen waddooyinka qaabkay u baxeen iyo miisaaniyaddii oona jirin laakiin hadda markaan isku soo ururnay dadaaladii aan ka samaynay waddooyin waa laga jari doonaa xariga hadduu alla yidhaahdo waddooyin aan dhammayno xarigaan ka jarina way jiraan oo de waddadan hadda erar casbuli laftigeyga waanu dhammaynay waana adeegiina way bixisaa marka taasoo kale in saa loo arko waa muhiim arrinta kale waddooyinkan arrinta erar buurtan geldoox run ahaantii way soo noqotay de siyaabo kala duwanna way soo martay arrintaas laakiin de sida la moodayo ma xafiis ahaan hadda 6 bilood xafiisku u hagar baxay hadda ka horna shirkad local ayaa ku guul daraysatay marka inagoo eegana shirkadda international oo China ayaan u dirnay nashqadiina waa la soo sameeyay 600 milyan bay u baahan tahay muhiimaduna in service inay bixiso waddadani yaa muhiima 7 kilomitir waxay u baahan tahay xitaa in loo sameeyo meelihii biyuhu marayeen buurta haddii maanta inta la geeyo la iska xaadxaadho wax faa'iido ay noo keenaysa ma jiro xitaa way dhaaftay nidaamkii hadda buuraha inta badanka waxaa lagu jaraa deegaankeena jaakhamarkan bahalkan birta laakiin in la qarxiyo weyn iyay soo recommend gareeyeen marka in miisaaniyadda u baahan tahay inaan eegno wey xafiisaan anagu waan jecelahay in waddadaa la qabto oo la dhammaystiro maadaamay jiitantay 7 kilomitirna sababtii shirkaddii hore ay iskaga daysay waddadan ee ugu fashilantayna waxaa ka mid a lacagtii ay heshiiska ku gasho oo aad u yareed marka in arrintaasaa loo qaato wey waddada raaso banafrig waddooyinka mashruuca federaalka waddooyinkaan dayactirna baan ku darnay marka hadda caradhigii baa la sameeyey maadaama lacagtu face nagu soo dhacdo in hadda caradii la ballaariyo la dhammaystiro yaa qorsho ah marka si guud dhinaca jidadka isbeddel weyn ayaa ka jira oo aad u fiican marka waan sii xoojinaa kuwan mashaariicdan federaalka laftigeyga platformyo iyo waxaa jira golo aan ku xidhiidhno oo dhibaatooyin ka jira lagu saxo guddoomiyaashuna way ogyihiin marka aad iyo aad baa u mahadsantihin